ku soo dhawow iskaashatada Kobciye. Kobciye waa iskaashato Soomaaliyeed oo loo wada siman yahay ayna wada leeyihiin isirka Soomaaliya oo dhan. Kobciye waa iskaashato maalgelinaysa wax soo saarka geyga Soomaalida. Iskaashatada Kobciye waxay u taagan yihiin horumarinta dalkooda iyo dadkooda dhinac kasta. Ujeedooyinka Kobciye loo asaasay waxaa ka mid ah 1. baabi'inta saboolnimada 2. soo celinta sharafta shakhsiga Soomaaliga 3. maalgelinta kheyraadka dalka 4. kor u qaadista dhaqaalaha dalka iyo qoyska Soomaaliyeed 5. horumarinta deegaanka iyo nolosha bulshada 6. tayeynta caafimaadka iyo waxbarashada. Haddaba waxaad ka mid noqon kartaa mulkiilayaasha iskaashatada Kobciye adiga oo ku maalgashanaya lacag gaadhaysa $182.5 sanad walba, taas oo u dhiganta $0.5 maalin walba. sidoo kale waxa ay leedahay iskaashatada Kobciye qayb sadaqa jaariye ah taas oo la mid ah maalgashiga kor ku xusan aadna u baxsan kartid waalidiintaada, ehelkaaga ama cid kasta oo ka mudan. Haddaba lacagta aad maalgashatay iyo lacagta aad u sadaqaysay waalidiintaada labadaba waxa lagu maalgelinayaa mashaariicda ballaaran ee baaxadda weyn ee Kobciye. lacagta aad ku maalgashatay faa'iidada ay ku dhasho waad qaadanaysaa. lacagta sadaqada ahna faa'iidada ay dhasho waxaa lagu maalgelinayaa danta guud sida xarumaha caafimaadka, waxbarashada, wadooyin, ceelal, masaajido iyo wax ka qabadka abaaraha soo laabta. mashaariicda ay maalgelinayso Kobciye waxaa ka mid ah aasaasidda suuq ballaaran oo ku yaala meel walba oo xubnaha Kobciye ay degan yihiin, maalgashiga beeraha, xoolaha iyo warshadahooda, maalgashiga xarumo kala duwan oo cilmi baadhisa, aasaasidda adeeg bangi oo ay leedahay iskaashatada Kobciye, dhismayaal guryo oo deegaan ah iyo kuwa loogu talagalay ganacsiga, maalgashiga warshadaha, maalgashiga kheyraadka badda iyo bariga, guur wadareed kaasoo loogu danaynayo dhalinyarada Soomaaliyeed. haddaba muwaadin ka faa'iideyso fursadan oo kala xiriir iskaashatada Kobciye nambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda si adiga iyo ubadkaaga aad u heshaan waxbarasho iyo caafimaad bilaasha.